وحلقة كوي تبنات أما فدي كوي تبنات أو فديادي أي نوعان كوجا دقناي وقوم قعدرناي ضيوق محمد علي الجبرتي يدين حماضة الشيعة أحاديث ترى بدن أو سورة حمية يتجاوبه هذا أيين هراء يسوع مرني جلسة تن وحرب عنا دور قضب إن شاء الله تعالى كبرارجيه قضب ككوباد أحاديث ترى بدن أحاديث الصفات كأه أيو إنكري أو نديدي حاكم ده رؤية أي مؤمنين تأركيان ربي جود وحاكم ده أحاديث الصورة ده وحاكم ده أحاديث تلمامس صفة الرجل لله سبحانه وتعالى وحاكم ده أحاديث تلمامس صفة الساق لله سبحانه وتعالى لما أنتود صحيحين كي غير كود بكسوكين ونا ودديدي ولما أنتود وحكي سوق هذا وحنشرين waxaan rabaa markaa inay dhaahdo mid isku daalin mayno ninkan waa shiicana xalaqaadka horaan ku soo tilmaamay kuwoodan hadda joogiya maraajicdooda inay mucaqila yihiin sifaadka Ilaahay oo dhan diidan oo sifaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo horjeeda ama ha noqdaan kuwa quraanka ku yaala ama ha noqdaan kuwa ku yaala ahadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam tusaale ahaan sifatu ru'ya waxay nagu diidan yahay oo Ilaahay baa muuminiintu arkayaan qiyaame ma qabo mana ogola waxaad ila daawataa hadalkiisa kan وبالتالي انت waxa si dheer Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan caabudno ayuuna amray inaan baadhno suuradiisa ama suuratiisa aan aragnana ma amrin noomana sugan quraanku bal quraanku wuxuu sugay arinta cagsigeed iyo arinta bedelkeed isagoo oo quraanku oranaya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar ayad qadi'a oo aan ahayn maxay ahayd aayadka mutashaabiha weeyaan آيات محكمة أي إلهي كله سبحانه وتعالى أبصارته ما بهليلي كرته بصر كان عادي العين الباصرة إيشان عادية وحركته مرقها ككوبا عادية نقطها جراحة ما هليلي كرته حبن كان أو حكو أرجنه إلهي كما هليلي كر صوبته أقاعده حرون السامع مصنوع مارك وإلا إلهي من أرجنه سبحانه وتعالى ونلها الله الله يفوق مباشرة انتو نوصو ديرها النبي ملائك وواسطو كلاء للسمين سبحانه وتعالى سيبوا مخلوق وهليل كرا أركتد الربي وإلا القرآن كان بيننا هدي عنده إلهي بالأركي وإليه صورة سيسوب بدلها وإليه هندتكو تنكو ما نقولنا تكلانكو قلنا قاني وسعادي ولا خطاب هيان سيدن وحيكد انت هاي قرآنكو آياتها قرآنك وحا أي شيئان صح معه إما إن الرواية بيننا هي إن القرآن كبيننا مد بين قنيسة تكل الرواية وهالكليالة رواية أبي هريرة وهالكليالة ما حتى واحد متواترة تقعد إنه الديدية هي صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى وح عجيب والله يابله صفة الرؤية وإنه أجنا واحد كسارة القرآن كأكثر من موضع وح كسارة أحاديث النبي كسارة ومتواتر مسائل كان صفات كان ayaga si gaar ah in sha Allah ta'ala xalaqad uu sameyn doona abaaqishiisana aan ku burburinay aan ku baabi'in doona hadii Allah idmo wixii abaaqilahu keenay meesha laakiin si guud waxaan rabaa inaan ilaahdo kow ahadiista ru'yada ku soo aroortay in Ilaahay la arkay marka laga yimaado aayaadka Quraanka waa ahadiis mutawaatir waa qodobka xiga waxaan ku sheegayaa ama ahadiisu suura dheh ama ahadiisu rijli dheh ama ahadiisu saaq dheh waxaan ku sheegayaa madhabka Ahlus-Sunnah wal Jamaa'a hadda aanu ku leeyahay صفة كستا أو قرآن الكريم كقصة أرورتي أما أحاديث النبي كقصة أرورتي عليه الصلاة والسلام أو إلهي صفة أو كنكتي ظاهر كذا لقصة لا وان لا تأويلنا هين ولا وان لا تعطيلنا هين ولا وان لا تحريفنا هين تمثيل يتكيفنا ماله إلهي بقى يقانا سبحانه وتعالى ثابته له صورة دي سواسي ألا يقانا رجلي بوليه هي واسده إلهي با يقانا ساق waa loo sheegay seebay tahay kayfiyadeedu waa see alla yaqaana kayfiyadana ma naqaano macaaniduna waa macruuf oo ahadiista iyo quraanka wax macnahooda la yaqaano weeye taasaasan kala yahay waa qodob madhabka Ahlus-Sunnah wal Jamaa'a arinta macruuf ku yahay wax la yaqaano weeye taa markaan ka gudbo ahadiista aw suura xumay waxa kamid ah ama oo been abuurka Abu Hurayra ku tilmaamay xadiidka Abu Hurayra warinayo oo qisadii Abi Talib iyo dhimashadiisii ku saabsan oo iyaduna Bukhari iyo Muslim iyo qeyrkoodba ku taala oo isku day inuu yahay Abu Hurayra ma soo gaarin geeridii Abu Talib
isla markaana seebu u warinaya waxaan rabaa inaan iyadana idhaahdo ayada iyo dhowr mas'aloon dib ka sheegi doono hadda sheegaya ayada iyo maraasiilu saxaaba iyo islaamu abi hurayra iyo calaaqadii kala dhaxaysay kacb al-ahbar iyo abdullah ibn salam insha Allah kuwa ayago mid kastaaba qodobaysan ma horta gaar u soo tilmaami doona insha Allah waan u soo gudbin doona laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo qof aad muqaddimadii iyo asalkii ku kala tagteen farac inaad isku waafaqdaan ama natiijada soo baxaysa waxaan meesha soo gali karin weey maraasiilu saxaaba cinda ahli sunnati wal jamaa waa wada saxiixa dhamaantood hadal lama leh isaguna wuxuu aaminsan yahay maraasiilu saxaaba iyo wixii saxaabigu intuu saxaabi kale ka wariyay saxaabigii kale oo meesha ka xadfo nabiga toos uga wariyay inay wada been abuur yihiin buu aaminsan yahay takaa khaldanna waa taas aad u baahan tahay inaad iska saxid wayla waxa la waxa xadiis ku taalaaba waa inaad qubti bay noqonaysaa taa waa qodob taa macnaheedu waxaan uga socdaa marka qodobka aan uga socdaa inay idhaahdo waxba dhib iyo ceeb male Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qisadii Abi Talib nabigu uga warramay oo kadibna uu wariyay waxaan kala dhib lahayn in saxaabo kale u sheegtay oo uu nabiga toos uga wariyay ana hadda ku sheegaya la socod waxay saxaabadu dhexdooda kale wariyaan ki ka wariyay intuu iska dhaafo nabiga uu toos uga wariyana wax ku jawaan ma jirto saxaabada rasuulkuna kulluhum udul hadan kuugu celaya waa inaad la socotaa ereyga aad ka jirocotay aad nacab tahay saxaabada nabiga wada udul ah saxaabada nabigu dhamaantood waa udul waa wada caadiliin quraanka sunnada ku taala adigana su'aashii waanu ka sugaynaa ahayd ma ogtahay quraanka kariimka aayada sheegaya saxaabada cadaaladooda hadaad ogeyn aanu ku barno ee ogolow hadii aad ogtahay qarinaysidna sheeg taa waa qodob islaamka Abu Hurayra dib baan uga hadli doonaa insha Allah ta'ala Abu Hurayra goormu soo islaamay sida raajixa oo xaafid ibn Hajar iyo qeyrkood ay rajaxeen islaamka Abu Hurayra iyo hijradiisu laba ay kala ahayd waqtigu soo hijrooday waa sanadii 7aad waqtiga uu islaamayna waqti aad uga horeeya ayuu ahaa dib waxaan kala uga hadli doonaa insha Allah ta'ala calaaqada ka dhaxaysay Kacb al-Ahbar iyo Abdullah ibn Salam iyo Abu Hurayra kala dhaxaysay iyo waxyaalo tira badan oo ku saabsan Abu Hurayra ahadiisiisa tirada badan iyo ahadiista badan oo wariyay 5000 inay gaaraysa la tilmaamay iyo masaa'ilkan insha Allah ta'ala dib ayaan uga hadli doonaa xalaqadan 11aadna insha Allah halkaas haynoo joogto wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in